YouTube ha bilaawin haddii aadan diyaar u ahayn boqol guul daro. Dad badan marka la dhaho YouTube ama content creation waxay soo sameeyaan video waxayna soo dhigaan bartooda iyagoo filayo millions of views ama thousands of subscribers. Laakiin runta sidaas ma aha. Aniga hadda YouTube-kayga videogii ugu horreeyay aan soo dhigay 3 isbuuc 0 views ku taagnaa. Adigana waxaa rajeynaysaa in videoga ugu horreeyay uu blow up sameeyo ama performance sameeyo. Taas ma aha wax ka shaqeynayo halkan. So marka adiga marka bilow tahay waa inaad boqolkiiba boqol u dulqaadataa 0 views, 0 likes, even 0 impressions. Hadda ka aniga ahaan 5 videos ugu horreeyay aan soo dhigay 0 views, 0 likes. Cid daawanaysay videoskayga ma laha. Waxaan isdhahayay videoskaaga uma qalmaan in sidaan u dhintaan. Laakiin journalistka guuleysto waa kuwa marka xaaladda sidaas ay u adag tahay video soo sameeyo every time soo jeedo ama ideas keenayo waxyaabo soo sameynayo. Aniga hadda anigoo wareersan oo isdhahayo meeshaan adiga laguma talagelin waa inaad iska joojisaa ama maanta kadib video ha soo dhigan anigoo isdhahayo baa waxaa helay video adiga aan soo dhigay performance fiican ii sameeyay 3k views gaaray 200 oo subscribers ii keenay. Markaasaa isdhahay ogaaday in meeshaan kaliya u baahan tahay joogtayn iyo inaad mar walba every time soo jeedo soo fadhiso ideas keento. Markaasi waxaa la hubaa inaad heli doonto video fiican oo performance sameynayo channelkaaga gebi ahaanba bedeli doono. Markaad hesho video noocaas oo kale ah waxaa laga sameeyaa videos badan oo videogaas la mid ah ama hoos imaado kadibna sidaasaa lagu wadaa channelkaaga because of waxaad ogaatay channelkaaga waxyaabaha uu u baahan yahay ama dadkaaga u baahan yihiin formulagii ku shaqeyn lahaa. For example aan ku siiyo hadda marka footballka aan u imaano maalin haddii player gadaal laga keeno ama ciyaartaba lagu soo bilaabo goolal ama performance fiican sameeyo playerkaas likely way u badan tahay in ciyaaro seegi lahaa ciyaari doono fursado badan meeshaas ka heli doono because managerkan waxa uu ogaaday formulagii saxda ah meeshaas ku shaqeyn lahaa buu ogaaday. Adigana marka hadda video noocaas oo hesho waad ogaatay formulagii shaqeyn lahaa sidaasi ku soco hal formula consistency-gana ha iloobin ku soco. For example hadda nin lagu magacaabo Isaac oo YouTuber ah 9 videos soo dhigay 200,000 oo subscribers uu haysta. Marka videogii ugu dambeeyay waxa uu sheegay in uu leeyahay YouTube channel kale oo uu ku barto storytelling-ka, editing-ka iyo guul darada. Waxa uu yiri wiliga ha isbarbar dhigin jabtarkaaga koowaad qof jabtar 100 marayo. Saay haddii aad halkan ku cusub tahay soo subscribe garay. Waxaan ku leeyahay wax adiga hadda aad wado ka aajisin ku soco guul ku rajeynaa saaxiib. Peace.